hotel Doolayare ee magaalada Hargeysa waxaa lagu qabtay shir nabadeed lagaga hadlayay colaadda u dhaxaysa Soomaalida iyo Oromada dalka Itoobiya gaar ahaan xuduudda dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya halkaas oo muddooyinkii ugu dambeeyay dagaalo ku dhex maray Soomaalida iyo Oromada ay ku nafwaayeen dad badan kuwa kalena ay ku dhaawacmeen waxaana halkaasi hadalka isaga dambeeyay عقال dhalinyaro iyo haweenkii ka soo qayb galay munaasabadaasi iyagoo dhamaantoodna hoosta ka xariiqay muhiimadda ay leedahay nabadgelyo lagu soo dabaalo colaadda ka aloosan gobolkaasi dadkii beerahoodii yaantii waxay haysteen waa la gubay caruurihii dumarkii uurka lahaa calooshii laga soo riday dadkii waa la gumaaday wakaa sawiradii meydku banka 5 kiiloomitir bay u jiraan beeraha sawirkoodu idiin muuqdo ee aad arkaysaan 5 kiiloomitir bay u jiraan jigjiga hantida halka lagu gubay ee lagu baabiyay inta duulimaadka lagu soo qaaday marka waxa weeye waxaan ku soo gabagabeynayaa cid kasta oo muslima cid kasta oo wax garada cid kasta oo damiirkeedu shaqaynayo cid kasta oo afka Soomaaliga ku hadasha dhiiga daadanaya iyo gumaadka socda in wax laga qabto marka waxaanu baaq u diraynaa anagoo ah odayaasha beesha aan ku hadlaya afkii odayaasha meel kasto ay ku nool yihiin dawladda federaalka ah ee Itoobiya baaqaas waxaanu leenahay war arintaas waa arin khatar ah waa arin aad u dhibaato badan arintaas xasuuqa ah ee halka ka socota waxaanu leenahay arintaas si degdeg ah waxa looga qabto gobolka faafan ee uu dhibka u weyn ka socdo ee aan ahayn beesha gari koombe ee ah beelaha kale ee ay wada degan yihiin odayaashoodan si gaar ah ugu socodsiinaya sidoo kalena waxa halkaasi ka hadlay Aamina Cabdikariin Yuusuf oo ku hadlaysay afka Amxaariga ee lagaga hadlo dalka Itoobiya waxaana maamulka dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo dawladda dhexe ee federaalka Itoobiya ugu baaqday in xal laga gaaro colaadda u dhaxaysa Oromada iyo Soomaalida መንግስት የለም ወይ እኛ እኮ ለመንግስት ዘላለማችን ተገዚነን በኃይለ ሥላሴ ጊዜም ቢሆን እየታጨን የኖርነን በባርነት የኖርነን ነፃነት ለኦሮሞ ብቻ Sheikh Abdiqani Sheikh Ali Arab oo isna ka hadlay halkaasi ayaa waxa hadaladiisii kamid ahaa waxa weeyaan 5 kiiloomitir oo meel madaxtooyadii u muuqatay sidoo Axmed Tawakkal bay imika inoo sheegay ayaa dadka meedkiisii waray waa nasiib daro in madaxweynuhu hadalkiisa macaan u bedelo baan anigu kula talin lahaa madaxweyne Mustafa Cagjaro hadalkaaga macaan fulin raacide waxa weeyaan adduunyada marka arin dhaco in laga hadlo oo wax la isla soo qaado 30% weeyaan 70 waa fulinta de 30kii waanu haynaayo hadaladii macaan waan ka haynaa madaxweynuhu laakiin se fulintii kaama hayno dawladda Soomaaliland waxaan ka codsanaynaa mudane Muuse Biix Cabdi horta waan salaamaya marka koobaad salaadiinta dawladda Soomaaliland aad baan uga codsanayaa sida ay nabadeynta ugu caan baxeen dawladda Soomaaliland inay taayadana ilaahay garansiiyo ay diraya dhamaan Soomaali meel ay joogto cod gaaban iyo cod dheerba waxaan ugu dirayaa Soomaalinima la igu dilaya Oroma ay dilaysa Oroma weerar igu soo qaaday dhul bayna doonaysa barina way soo dhaafi hadaad aniga igu eegto aday kuugu iman walba gurigaaga iyo qolkaaga Oromia waxay doonaysaa dekad ilaahay una siin oo Soomaali ilaahay ugu deeqay ilaahay dartiis ku daay wixii dhintana Allah u naxariisto waxa ka dambeeyana waxaan u baaqaynaa walaalayaal mataan waxa weeyaan waxa leeyahay inaan uu ku dhintaa dagaal laakiin kuma dhashaa la yiri taasaan idinka codsanayaa gari koombo u marinaya waxa weeye hadii la soo qaxay oo ay dagaal la dhaceen oo dhibaato badan ay dhacday oo uu xasuuq dhacay waxa weeye dad baa ku agoomoobay dad baa ku hanti beelay dad waayeelo jilcisan baa jira ugu dambeynna waxa shirkaasi soo gabagabeeyay Caaqil Maxamuud Cabdiraxmaan Baki waxaana hadaladiisii kamid ahaa waa quduraya salaadiinta odayaasha uqaasha madaxda Soomaaliland in arinta si dhaqso ah u hawlgalaan oo dhiiga dadka ay kala badbaadiyaan marka waxaan ku soo xidhayaa shirkeeni ninkii qeyrkii loo xiro soo qoyso adiguna wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Mustafa Maxamed Umar Ariel TV Hargeysa